ma u ogashaa caruurtaada inay caruur noqdaan? Magacayga waa Raxmo Xuseen. Waxaan rabaa maanta inaan tip yar niila wadaago. Hooyooyin badan waxaan arkay caruurtooda ooba u ogoleen inay caruur noqdaan. Maxaa ka wadaa saas? Caruurtooda inay xaafada ka caawiyaan, caruurtooda inay iika dharkooda xirtaan, caruurtooda iika in timahoos ka shalaystaan haduu wiil yahay hadii gabar yahay, caruurtooda inay iika qabaystaan, caruurtooda inay iika isku filnaansho ama wax qaldaan. Hadii cunugu markuu yaryahay ama haduu weyn yahayba markuu ilmaha wax baranayaan waxyaabo badan ku ciyaarayaan soma. Inay u ogolaatid ayaa fiican. U ogolaaw caruurtaada siday wax ku bartaan. Hooyooyinkeena waa aragtaan aka markaa yaryareen waa noola soo ogolaa jir. Mara cuntada gubno, mara waalasha jijibino, mara maxallihi jir nadaafada ku ciyaarno. Laakiin saas relax ahayn maamo hooyooyinka. Sidaas anak wax ku soo baran. Anaka marka wax walba dhabarka saaran. Waxaan rabnaa perfect wax walba sida anak ku rabno. Wax walba waxaan rabnaa qatar inay noo noqdaan. Wax walba waxaan rabnaa waxaasoo dhan waa gaarina. Laakiin u ogolaaw cunugaada inuu marka hore wax ku ciyaaro. Taas waxay korinaysaa maskaxdiisa, waxay korinaysaa jirkiisa, waxay korinaysaa kalsoonidiisa. Hawsha guriga laga qabto kaliya ma aha wax ay ku ciyaarayaan, laakiin waa mustaqbalkooda dib u caawinaysaa. Sayniska iyo caruurta dadka ku takhasusay waxay sheegaan caruurta xaafada ka qabta hawsha in kuwa jaamacadaha dhameeyaan ay yihiin. Waayo hadda waad arki kartaa natiijadaas. Caruurteeni, wiilasheeni, gabdhaheeni ayaa badanaa la dhahay caruurta oo ka qalin jabiyo oo jaamacadaha. Maxaa keenay? Waxaa keenay hawsha iyo dhibka iyo guriga ee la soo dhibtoodeen ayaa waxaa bare adkaysi. Maanta hadaa qalad basasho si loo soo jarjaro beri way saxayaan. Maanta haday farta midi iskaga dhuftaan beri way saxayaan. Yacni ma ka wado caruurta dangerous gali, laakiin waxaa ka wada towbar sidee u bartaan adkaysiga. Insha Allah idin salaamaya. Assalaamu calaykum.